dhacdo dunida gilgishay ayaa dhacday taariikhdu markii ay ahayd 2 May sanadkii 2011. goobtu waa waqooyi bari dalka Pakistan, magaalada Abbottabad, gaar ahaanna guri weyn oo meel deegaanka ka durugsan ku yaala. diyaarad helicopter ah ayaa ku dul deganaysa dhismaha guriga. waxa ka soo degaya cutub ka tirsan ciidamada gaarka u tababaran ee Mareykanka si ay u fuliyaan howlgal gaar ah oo dawladda Mareykanku ay u arkayso mid aad muhiim u ah. howlgalku waxa uu qaadanayaa muddo 40 daqiiqo ah. intaasi waxa guriga dhexdiisa isqabsanaya dhawaqa rasaasta iyo qaylada askarta gudaha u dhacday. caalamka oo dhan waxa uu ka wardhowrayaa dhacdadaasi. tolow maxaa dhacaya? saacado kadib waxaa telefishinka soo hor istaagaya madaxweynihii Mareykanka ee xilligaasi Mr. Barack Obama. waxa uu shaacinayaa in la dilay qofkii lambarka koowaad ugu qornaa liiska dadka la doondoonayay. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. gudaha Mareykanka iyo meelaha la midka ah waxa isqabsanaya farxad iyo reyn. warkaasi waxa uu ahaa kii ugu bishaarada badnaa oo ay maqlaan abid. haddaba kumu ahaa Osama bin Laden? sidee isaga oo xulafo la ahaa Mareykanka uu isu bedelay mid cadowga ah? maxay ahayd kaalinta uu ku lahaa dhacdadii 11 Sebtembar? sidee CIA-da Mareykanku ay ugu suurta gashay in ay helaan xog ku filan in la dilo ninkaasi oo ay u calweysnaayeen muddo 11 sano ah isaga oo ku dhuumanayay buuraha dalka Afghanistan? qisadaasi oo faahfaahsan ayaynu ku qaadanay. Osama oo weli nool haddana aan laga haynin wax xog ah oo fududeynaya in la soo qabto ama la dilo. isku dayo badan oo lagu doonayay in lagu helo xogo ku saabsan Osama halka uu ku nool yahay iyo sida uu u nool yahay ayay CIA-du bedeshay qorshihii ay Osama ku raadinaysay. waxayna ku bedeshay in ay bedelkiisii isku howlaan raadinta ninka isaga gacan yaraha u ah ee u fududeeya in la faafiyo cajaladaha uu Osama iska soo duubo. rag badan oo Al-Qaacida ka tirsanaa oo ay dawladda Mareykanku ka qabatay wadamo kala duwan, mid kasta oo la wareystay arinta Osama wax laga weydiiyay siyaabo kala duwan ayay uga hadleen. laakiin waxa ay ka midaysnaayeen jawaabta hal qof magaciisa, kaasoo ahaa Abu Ahmed al-Kuwaiti, gacan yarihii Osama. haddii CIA-du ay ninkaasi xogtiisii hesho, waa iyada oo heshay xogta Osama, maxaa yeelay Abu Ahmed al-Kuwaiti waa gacanta midig ee Osama. laakiin CIA-da haddana waxa nasiib daro ku ahayd Abu Ahmed al-Kuwaiti ayaa la dhahaa, sababtoo ah magacaasi mid rasmi ah oo la tixraaci karo ma ahayn. wuxuu iska ahaa magac afgarasho oo kaliya. dhowr sano ayay ku qaadatay in magaca dhabta ah ee Abu Ahmed al-Kuwaiti la soo helo. sanadkii 2007 sirdoon ka tirsan dawlad kale oo ilaa iyo maanta aan magaceedii la shaacin ayaa CIA-da la wadaagay magaca rasmiga ah ee Abu Ahmed al-Kuwaiti, kaasoo lagu sheegay Ibrahim Saeed Ahmed. waa nin asal ahaan Pakistan u dhashay laakiin qaatay dhalashada Kuwait. intaas haddana ma ahayn xog ku filan CIA-da, laakiin dabagalka iyo raadintu waxay ahayd mid joogto ah. waxaa la soo gaaray sanadkii 2010. CIA-du waxa u suurta gashay in ay xadidaan barta rasmiga ah ee laga heli karo Kuwaiti kadib markii la dabagalay lambaro telefoon oo la xaqiijiyay in Kuwaiti uu isticmaalayay. CIA-du waxay ogaatay halka uu Kuwaiti joogo in ay tahay dalka Pakistan. gaar ahaan waxa ay xaqiijisay in uu degan yahay guri aad u weyn oo 3 dabaq ka kooban, barxad waasac ah leh, isla markaana uu ku wareegsan yahay gidaar joog ahaan 5 mitir ah, dushana looga xiray silig qodxa leh. waxyaabaha yaabka lahaa waxa uu ahaa guriga sidaas u weyn cidda galaysay oo ka baxaysay waxa uu ahaa ninkaasi Kuwaiti ah oo kaliya. ayada oo ay taasi jirto, haddana CIA-du waxa ay aragtay in guriga barxadiisii lagu soo waro dhar badan oo ay isticmaalaan rag, haween iyo caruur. sidaas darteed waxa ay xaqiiqsadeen in guriga uusan ku nooleen Kuwaiti kaligiisii oo dad kale oo badanna ay degan yihiin. laakiin haweenku suuqa ma aadaan, caruurtuna dugsiga ma tagaan, xitaa barxadda guriga uma soo baxaan. Kuwaiti ayaa guriga ka baxa haddana soo gala. wixii banaanka looga baahan yahayna isaga ayaa ka soo adeega ama ka keena. CIA-du hore waxa ay u hayeen xog ah in Kuwaiti uu yahay gacanta midig ee Osama. guri weyn 3 dabaq ka kooban, caruur iyo haween ay ku nool yihiin, haddana aan la arkaynin oo Kuwaiti kaligiisii lagu arkayo. arin shakigeeda leh ayay ahayd.
muddo kadib dowladda Mareykanku waxa ay u diyaarisay dayax gacmeed la socda oo sawiro iyo muuqaal ka keena dhaqdhaqaaq iyo xogta gurigaasi ka jirta. sawiradii dayax gacmeedka laga helay waxa ku jiray in guriga sidoo kale uu ku nool yahay nin aad isu qarinaya oo aan la aqoonsan karin, kaas oo aan isticmaalin haba yaraatee wax aalad isgaarsiineed ah, ninka go'doonsan caalamka intiisa kale. markan hawsha sirdoon waxa isu bedeshay howlgal ciidan. Mareykanku waxa uu bilaabay in askar gaar ah loo tababaro soo qabashada ninkaas guriga isku qarinaya oo loo badiyay in uu yahay Osama bin Laden oo muddo dhowr iyo 10 sano ahayd la raadinayay. xilli subax ah taariikhduna ay ku aadanayd 2 bishii May sanadkii 2011 laba diyaaradood nooca helicopterka ah ayaa ka kacay garoonka diyaaradaha Jalalabad ee dalka Afghanistan iyaga oo ku sii jeeday dalka Pakistan, gaar ahaanna guri ku yaala magaalada Abbottabad oo uu ku noolaa Osama bin Laden. mas-uuliyiintii ugu waaweyneed Mareykankana uu ku jiro madaxweynihii xilligaasi Barack Obama waxa ay howlgalka kala socdaan shaashada xafiiskoodii si toos ah. ilbiriqsiga ka dambeeya halistu waa ay kordhaysay, maxaa yeelay diyaaradaha howlgalka fulinaya waxa ay hawada Pakistan galeen iyada oo aan dowladda Pakistan la ogeysiin arintaas. wax walba ayaa daqiiqadahaasi suurtagal ahaa. kaaga daran guriga la weerari rabo ee uu Osama ku jiro waxa u dhow xero lagu tababaro ciidamo. qalad kasta oo si kam ah u dhaca waxa uu abuuri karaa iska hor imaad dhex mara ciidamada Pakistan ee jooga xarunta tababarka iyo askarta Mareykanka ee howlgalka loo diray. laakiin dowladda Mareykanka arintaas wax ahmiyad ah ma basiin. hadafkoodu ugu weyn waxa uu ahaa in la xaqiijiyo soo qabashada Osama, nolol iyo geeri tii ay ahaataba. wixii intaasi ka sokeeyana ee dhaca Mareykanku dan kama gelin. muddo kooban kadib ciidamadii kumaandoosta Mareykanka ee howlgalkaasi loo diray ayaa ku degay dusha sare ee guriga. waxayna bilaabeen in ay dabaq ugu wareegaan. 40 daqiiqo kadib ayaa Osama laga helay mid ka mid ah dabaqyada sare ee guriga. rasaas la isweydaarsaday ayaa sababtay in la dilo Osama, kadibna si degdeg ahayd ayay meedkiisii ula carareen. markii ay xaqiijiyeen qofka ay howlgalka ku dileen in uu Osama laftigiisii yahay ayay u qaadeen oo markii dambe ku aaseen mid ka mid ah badweynta wadamada Carabta. wax dambe oo